markii aan xukuumadaydu ay timid magaalada Muqdisho boqolkiiba 50 in ka badan anshaxan kara boqolkiiba 60 waxay gacanta ugu jirta shabaab ciidamadan waxay joogeen jidka wadnaha wada la socotaan bishii August 6deedii waxaan ku guuleysanay xashaab inaan ka saarno magaalada Muqdisho ka bacdina aanu u soo jeesano sidoo kale aan ka xoreyno gobolada dalka ee kale waxaanu bishii December sanadka la soo dhaafay xoreynay Beledweyne kabacdi waxaa ku xigay Bay Bakool gobolka Gado dhamaantiis marka laga reebo laba magaalo Jubbooyinka walina waa ay socotaa xoreyntii dadka laga xoreeyay shabaab wayna socotaa xasilintii soo mararka qaar kood waxa weey waa inaad xoreyso dalka laakiin waxa ku muhiimsan xoreynta waa xasilinta dalka in la xasiliyo maamul loo sameeyo gargaarka bini'aadanimo la gaarsiiyo iyo sidoo kale tasiilaadkii iyo imkaaniyaadkii ay u baahnaayeen bulshooyinka Soomaaliyeed ku nool goboladaas